waxa qurux badan markaa haddii wax la ballan qaado wixii ma hirgeli karaan inuu madaxweynuhu bartaay soo taago dadka idhaa raalli ahaada biklaagar I am very sorry waan ku talagalay hawshaasi may dhicin dad xisbiye qaran baa jira waxa jira maxaa dhahay dad ilaahay karaamo u dhaliyo wadanka dhexdiisa qiimo kale oo nool oo yaaban ha loo yaro hala tashado wixii la yeelayo sidaan ku saacano muhiimaduna wax weeyaan nabadeena inaynu ilaashano anigu waxa ka mid ahay xisbiga wadani haddaba xisbiga wadani muxuu kaga duwan yahay xisbiga kale horta marka ugu horeysa calaamadiisu waa casaankaas liintaas ka dharkisaa midabka liinta ayaa muqaadan liin baa saa wada cabisana كودا لينتوا وخضرة وتوقع عنصر أورنج بالين هذا وأنا ميدا بكو قروح بدن يلا عليه سيدا درادي بمقابلة مقع أنا مقابلة نوا ودني مقع عاكون اسمه قرنسان مركا ميدا بكي مقع يقول سلين سوما أدونك وحش لا فيه وحوي والنظام الصومالي وحلا طلع غير كده طلع غير كده اسمه روشك ينوروي وحش لا فيه والنظام روشك أو قنيمة أنت هلا تكنولوجيا أنت هلا نظام بس لا فيه نظام كيس لا فيه نوا حبك حسبي هذا فرع بدل إنك أنا وحين وفى فهند دون تشر كان وحنا كنا سابسين هي يصدق وصعون دونا إن ولا شيء نورا صدق waxaan salaan gaar ahaan u dirayaa ummadda Soomaaliland meel kasta ay joogtaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum markii xigta salaan gaar ahaan oo aad iyo aad u qiimo badan waxaan u sii dirayaa wax allaaliyo wixii xubnaha wadani taageersan ayaan salaan u diray assalaamu calaykum warahmatullahi waxaan halkan maanta aan iskugu nimi waxa weeye shirweynihii وينا حسبك ودني ودن كنروي شركاس أو مانتا لقى حليو حياو بدن لكن سه وحن إمك شيء جيا إنه لو خردع يلون دونا مركو جوهر خردع جودهان وشركة دن كور صعدة مركو دنبنا أنتي اللالي أنتي حبناها ريجستر جريسن أما كتسامبا أما أنتي تاجري سبا inay dub iskugu hadhno السلام عليكم انت سنك سوكويا أد ما صنتها نور ولا سلا نور اللي شكتي شركة نوحو لي هي لبوتشي وجهه الرئيس حبناها حسبك iyo dhamaan dadka diyuufta maaragtay nagala soo qayb galay way ka qayb galayaan laakiin se wajiga labaad wuxuu noqonayaa workshop ama shaqo gaar ah oo ay xubnaha oo kaliya ay ku hari doonaan marka waxaan rajaynayaa inaan idin sheegi doono marka ay xubnaha oo qori ku hari doonaan markii wajiga ugu horeysa dhamayno waxaan jecelahay inaad saa ula socotaan waxaan halkan ka taageerayaa ama waxaan halkan doonayaa inaan ka sheego gudoomiyaha xisbiga khudbadii u jeediyay maalintii dhaweyto magaalada Hargeysa waxay khudbad aad iyo aad ugu cadeeyay mowqifka xisbiga waxaan aad iyo aad aan u taageerinaa hadalkii gudoomiyaha ka soo yeedhay Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga wadani ee ahaa in doorashada lagu qabto waqtigeedii maadaama oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu u dhaartay wadanka inuu waqti cayiman uu kaga degi doono waxaan jeclaan lahayn madaxweynaha inaanan anagu aanan oran haddaan nahay xisbiga wadani sidii ay iyagu ay lahaayeen waxaan kaaga soo saarinaa dhingid anagu oran mayno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sharaf naga mudan yahay waxaan leenahay madaxweyne wadanka wada dhaaratay sidii aad ugu dhaaratay waqtigeedii munaasibka ahaa haddii ay noqonayso wax suurtagal ah in aad kaga degto qalay dawladdu sameysay iskuul la yiraahdo mobile school macnihiisu waxa weeye waa iskuulo ka shaqeeya degmooyinka oo wareega sida tuulooyinka reer guuraaga xoolo dhaqatada haddaba mobile school ma shaqeeyay marka sababta aanu shaqeyno shaqadiisu gabay waxay noqotay iyadoo lacag ku filan ay waayeen macallimiintii wax ka baranay ka dhigaysay amba ay nolol ku filan waayeen taa darteed ayuu uga joogsaday inagoo u badan 60% inaynu nahay reer guuraa amba xoolo dhaqato aynu nahay hadiya jeer haddii aynu taa halkaa kaga nimaadno iskuulka mobile school oo sidaa ku baahbaahsan yahay
waxaa kale oo ka jira iskuuliga dawliga inay dawladdu ku ballan qaaday dawladda nimanka haysataa markay qabsanaysay waxaa ka mid ah hadalladeedii inay tiri waxbarashada firi ayaan ka dhigaya taasina may suurtagelin ardayda waxaa laga qaadaa 10 kun oo shilin iyadoo macallimiintu ay qaadato lacag ku dhow $100 haddaba 10 kun ee ardayda laga qaado markaynu wax yaro kooban ka eegno iskuullada 400 ee arday ee meel isugu yimid min 10 kun marka laga qaado 30% waxa yeeshaa ninka waxa yeeshay iskuulka maamulaha iskuulka yeesha markuu 30% yeesho macallimiinta la dhigaysa inay xaq darro tahay waxay helayaan lacag $20 xataa ka yar ay helayaan taasina waxa weeyaan siyaabaha ay dawladdu u dhaqmayso waani og tahay waxyaabaha wadanka ka socota 20 ugu yar hooyadaan karin marka waxay taagan tahay iskuulkii 10 kun shilin lahaa oo si fiican looga shaqeeyay waxbarasho fiican in carruurtu ku haysan haddaba haddii aan taa kaga baxo intaas aan ku dhameystiro oo ka hadlo xisbigan wadani wuxuu ka qabanayaa amba u sheegtay haddii uu wadanka uu qabsado qorshaha dhow oo ilaahay dhahdo inuu u qaban doono ardaydaas waxa kamid ah waxyaabaha xisbigan uu qaban doono haddii ilaahay dhahdo uu qabsado tayada heerka aqooneed dhammaan macallimiinta iyo dhigta dugsiyada inuu kor u qaadi doono miisaaniyada waxbarashada loo qoondeynayo macallimiin mushaar fiican ay la siin doono in wasaaradaha dacdarada laga saari doono iyo dugsiyada iyadoo loo sameyn doono caruuraha qaarkood sida caruurta indhaha la caruurta laxaadka la iskuulo si gaar ah loogu tababaro ama wax lagu sameeyo waxa kale oo uu ku ballan qaaday wadani in haddii alla yiraahdo in wasaarad kasta oo ku taalmiyi amba magaalo sideeda loo kantarooli doono lana soo celin doono mobile school oo loo sameyn doono dugsiyo wax lagu barto sida boardinadoo kale hooy iskuuladoo kale iyo iskuulo kale oo ah farsamada gacanta si hablaheena markii hore ay tacliintu uga burburtay ay dib ugu noqdaan waxbarashadii iyaga oo ka heli doona farsamada gacanta in luqadna ay ku bartaan gacantana wax ka bartaan oo ay u noqoto taasina tu wanaagsan ballanqaadyadaas iyo kuwo kale oo badan waxaa ku ballan qaaday xisbigeena wadani haddii ilaahay la qabto waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaal kulmiye uu tagayay markuu kulmiye yimid waxaas kor u kacay tahriibkii waxaad moodaa inuu tahriibku iyaga la socday waxay had iyo jeer halhays u lahaayeen inay yidhaahdaan waxaanu baabiinaynaa tahriibka waxaanu la dagaalamanaa tahriibka laakiinse xaaladii sidii lagu wadan may noqon waxa wadankeena ka jira ilaa iminka magaalooyinka waaweyn sida Hargeysa Boorama Burco lagu arko caruuro reerahoodii laga dalbanayo lacago oo magafihiiba uu ina soo dhex tagay waxa arintaas oo faahfaahsan inoo haysa gudoomiyaha garabka haweenka Leyla soo dhawaada waxaan aad idinka mahad celinayaa sida sharafta leh ee aad nooga aqbalteen inaad nagala soo qayb gataan shirweynaha saddexaad ee 2015 ee xisbiga wadani ee dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo shaqo la'aanta dhalinyarada haddii aan wax ka sheego sida aan wada ogsoonahay dhalinyaradu waa laf dhabarta bulsho kasta ay leedahay waana mustaqbalka ummadeed waana kuwii barito dalka iyo dadkaba hogaamin lahaa bulsho kasta waxa ay leedahay dhalinyaradu waxa ay leedahay mustaqbal saaran in ay dawladdu hore u mariso danteeda waxaanay ku waajib tahay xukuumad kasta oo dalka timaada haddaba tan iyo intii ay xukuumadda Siilaanyo xukunka ay qabatay waxaa soo ifbaxay shaqo la'aan badan oo dhalinyaradii soo wajahday sanad kasta waxaa ka qalin jabiya jaamacadda 5,000 oo arday kuwaas oo markay ka qalin jabiyaan aan haysan shaqooyin ku filan 70% waxa ay fadhiyaan guryahooda iyo meelaha kale ee la isugu yimaado suuqyada iyaga oo ugu noqda dib haddii ay cuni jireen qaadka ama se aanay cuni jirin baa dib ugu noqda qaadka oo ka dhigta camal taasina waxa ay keentay taasina waxa ay sii sababtay inay qabyaaladii soo korodho waana tan ka socota imika dalkeena sida aad wada ogsoontihiin meel kasta oo ay joogto dhalinyaradu waa ay sii laabatay qabyaaladii haddaynu ka taabano wax tahriibtu waa afo qaran oo dhammaanteen ina saamaysay qof kasta meel kasta oo uu joogo dawlad iyo dad qof kasta oo damiir lehna uu ka naxo dhalinyarada
saxaaraha liibiya iyo meelaha kale ee kala gedisan ku dhammaanaysa. haddaba siyaasadda xisbiga wadani ee ku wajahan xagga dhalinyarada waxa uu qorsheeyay in uu shaqo abuurid u sameeyo dhalinyarada dalka iyagoo ah kuwii bari uu hogaamin lahaa. sida shaqo u sameynta uu sameeynaya waxa kamid ah in la kiciyo warshada sibirka ee berbera taas oo ay ka howlgali karaan dhalinyaro aad u fara badan lagana shaqaaleysiiyo wasaaradaha kala gedisan. marka labaad waxa loo sameyn karaa meelo la isugu yimaado oo xirfado kala duwan isku weydaarsadaan. intaas ayaan kusoo gabagabeynaya. waxaana filaya dhammaantiin inaad ka dharagsan tihiin tahriibtu dhibaatada ay leedahay ama dhalinyarada Soomaaliland ku nool tacabka ay imika ka mudan yihiin ama tahriib ha noqoto ama shaqo la'aan 70% ay guryahooda fadhiyaan ama ay qaadka cunaan. waxaanu ilaahay ka baryaynaa in tahriibtan ilaahay ka soo hadeeyo oo dadka dhalinyarada dhamaanaysa inama dheera. saas ayaan idinku macsalaameynaya. waxaan idinkaga tagayaa dhammaantiin salaanta islaamka wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. واحد من الدادين إنه صومالي جودهان أما سوماليلاند قبيلة السحل أو مقرنسا فولهم بين وقاعدنا تاس أو أدمود إن دبات بدن أي نواهس أو أدمودين أي نو نقطة عذر عن كبيه كريدة مركا هدي عن سوقاته أولا دي إنه ميت كميدا أو أما الله كميدا فرقصان تصال حال أولا كأنه هنا محمد حاش لما قاري وحولي طويل كان قاله wuxuu ku adeegtaa nin isagu kartidiisa isagoo kala diitaan ka soo bixiyay marka ninkaas waxa weeyaan wuxuu ka dhiganayaa qabiilka waxa meel ku gabado buu ka dhiganayaa oo nin isagu soo taakir waay kartihaan iyo shaqo hadalku wuxuu ku kooban yahay bal xaqiiqatan hadal looma baahna ficil baana loo baahan yahay ficilka loo baahan yahay muxuu noqonayaa isbedelkii weynaaye ka dhacay Carabaha inan yar oo gaas isku shubay oo ka bilaabay Tunisia ka bilaabay oo dhowr wiil gudahood dawladdan isku bedeshay. Liibiya u gudbay, Masar buu u gudbay, intaasoo dictator baa dhagta dhiiga loo daray oo ka tagay. inagu Soomaaliland hadaynu nahay xorriyadeenna iyo dadnimadeenna iyo sharafteena waxaynu soo marnay halgan dheer oo adag. haddii aynaan helaynin wax siyaad baarre inoo dhaama maxaynu la dagaalamayna inuu caayeen anu damabaan ka aqoon siyaad barna lama shaqeyn ilma yar wax dhigtaan haar iskuulka dhigta lamana soo shaqeyn qorina ma qaadanin lamana dagaalamin laakiin dib igu hayun baa la sheegay laakiin marka waxaan arkayaa dhibti taalo dawlad kasta iyo dawlad kasta inuu dhalino inuu hiilino aynu kursiga saaro oo madaxweyne inoo ah oo mid mucaarad iyo mid muxaafidaba u ah madaxweyne waxa ka hoos dilaacaya group baa ka hoos dilaacaya ku xeermaya isaga dabeetana wax qarribaya iyagoon wax ka dhageysanayo ma waxaynu aqbali karnaaba nin qura waxba yaan lagu halqabsan maxaynu xirsi ugu halqabsan dad badan baa xirsi afka la dhaca reer walba nin baa ugu jira dadna runta isku sheegeen oo la ana reerkayga haya cumaamadu ka hadlayay markii dhaweeto yiri cumaamadihiiba wax ka badiyeen ciidamada qaranka caaqil baad arkaysaa suldaan baad arkaysaa caaqilka iyo suldaanku hibiya haybad iyo karaamo lahaa sidan taariikhda ku hayno maanta waynu arkaynaa waxa loo baahan yahay heer qoys heer qabiil heer qoys heer degmo iyo heer gobol iyo heer qaranba in la saxo wadanka ayaa loo baahan yahay waxaan marka maqlayaa 26 Juun ee kaga dhantahay madaxweynaha qaranku intiisa soo taagay marka aynu dooranay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo aan karaamo badan iyo sharaf badan u hayaa anigu runtii intuu halkaas soo taagay markaynu dooranay buu yiri waxa aan ballan qaadayaa inay doorashadu xilligeedu ku dhacdo meel walba waa laga maqlay wadanka iyo dibadda iyo meel kastaba maxaa ka hadhay maanta maalintii uu waan qabanaya dhowr bilood baa ka hadhay waxaanu arkaynaa rag kale oo ka hoos hadlaya oo wasiiraa oo anagu doorashadii diyaar baanu nacayn kanaanu keer baanu karban nahay hadda diyaar u tahay mee qorshihii mee nidaamka de ma dhacayso mana suurtagelayso waynu ognahay waxa qurux badan markaa de hadii wax la ballan qaado wixii ma hirgeli karaan inuu madaxweynuhu bartaay soo taago dadka raali ahaada Big Lager I am very sorry
waan ku talagalay hawshaasi ma dhicin dad xisbiye qaran baa jira waxa jira maxaa dhahay dad ilaahay karaamo u dhaliyo wadanka dhexdiisa qiimo kale oo nool oo yaaban ha loo yaro hala tashado wixii la yeelayo sidaan ku saacano muhiimaduna waxa weeye nabadeena inaynu ilaashano adduunka waxa islaafiyay waxa weeye waa nidaam af Soomaaliga waxa la yiraahdaa talay reer ka dhintaan talana reer ka dhismaa ruushka iyo Norway waxa islaafiyay waa nidaam ruushka oo qaniimada inta loo technology inta leh nidaam baa islaafiyay nidaamka islaafiyana waa habka xisbiyada fara badan ay isu dhaliilayaan ee u kala qabanayaan inaguna kuwaas inuu qaadanay xisbiyadii fara badnaana wadani baynu kana wadani wuxuu kamid yahay marka horumarka wadamada dadku qaateen mar haday dadku asxaab fara badan qaateen ruushku wuxuu nin kaliya taliyo xisb qodaya taliyo dadna waa ka isagoo batroolka dunida ugu badan leh oo technology ugu badan leh oo cilmiga ugu badan leh oo dhulka ugu badan leh oo kaydka dunida ugu badan dunida ku jiro waa halka maanta Norway oo gobol kamid ahayn ayuu bari marka Norway maxaa dhaafiyay ruushka waa asxaabta fara badan asxaabta nidaam hadaad maragto wadan dib u dhacay ama hore u maray nidaam baan hore u dhigay horena u maray nidaamka ayaa islaafiyay bini'aadamka marbay wada dhashay bini'aadamku nidaam baa islaafiyay inaguna waxaanu qaadanay Soomaali ahaan nidaamka xisbiyada fara badan nidaamka xisbiyada fara badanna inagu saddex xisbi maanta samaysanay anigu waxa kamid ahay xisbiga wadani haddaba xisbiga wadani muxuu kaga duwan yahay xisbiyada kale horta marka ugu horeysa calaamadiisu waa casaankaas liintaas ka dharkisaa midabka liinta ayaan qaadanay liin baa saa wada cabisana koobada liintu waa khudradda waa tawgu caansan orange baa la yiraahdaa waana midabka ugu qurux badan iyada leh sidaa daraaddeed baan u qaadanay magacana aan qaadanayna waa wadani magaca ka wanaagsan ma garanaysaa marka midabkii magaciiba isliin Soomaa waxaan intaa idin ku daraynaa khibrad badan oo aan sameynay horta marka ugu horeysa waxaan idin sheegayaa xogaye xisbiga shalay wala soo hadlay email loo soo diray aad buu idin soo salaamay shirkana igu salaamay wuri waan soo hambaliyay madaxda xisbiga Norway aad buu idin soo salaamay warcad ma aha gudoomiyaha warcad ay soo waxaan idin leeyahay maadaama aan ugu magac wanaagsannahay maadaama aan ugu midab wanaagsannahay maskaxdeeduna waa sidaa annagu xisbiga wadani waa xisbigii ugu da'da yaraa sanad iyo wax yar buu jiray waana arkaysaan maanta wadanka inuu yahay xisbiga koowaad been idin sheegi maayo xisbiga koowaad baa la isku haystaa dowladda maanta alla hadaayay joogto wax lagu bajiyaa wadani baanu gelaynaa haddaad isku xarifsan marka idinku firaaqa baa u hesheen oo bilaash baa u hesheen iska soo gala intiina aan register kahayn waxaan maraan kala sheekaystay horta xisbigan waa xisbi ay soo haysta oo nidaam leh oo wanaagsan oo dastuur leh hadaa ka akhristaan dastuurkiisa gudaha aad baa uga helaysaa waxa mid kale aan kaga duwanaanayna ma aha war ka fiicnaanayna oo naahno inaanu iska nidhaahno ma hadde kulmiyaba uu lahaa udub way lahayd ucud way lahayd anagu gobol waliba wasiir xukumi maayo gobolkaas dawladdiisa hoose iyo nidaamkiisa iyo iskuuladiisa wixiisa badhisanaya si hawshu loo yaraato madaxweynaha loo qabsan marka nidaam cusub baan dalka soo kordhinayna hadii la yiraahdo qabyaaladu way iska yaraanaysaa marka musuqmaasuqu iska yaraanaya cumaamadaha faraha badan ee lagu shaxaatiga way iska yaraanayaan waxaan oo dhan yaraanaya hadii la yiraahdo marka nidaam cusub baan soo kordhinayna walaalayaal waxaan idinku biirinayaa waxaan idinka codsanayaa intiina halkan joogta nin walba asxaabtaana soo kaxay adiguna nagu soo biir oo qaadhaanka xisbiga fadlakum waa 100 karoon 2 koob oo kafeen ku cabnaa anigu laftiriyay siinta muddo badan aniga maqnaamashada soo diray waxba inagu maahay nidaamka ayaa yara qaldan 100 karoon iska bixiya xisbigana ku soo biira been idin sheeg maayo xisbigana uu doolaya ninkii ka haray madaxda xisbiguna way joogtaa ninkii wax sii gashada debrito xafiisyada weyn baa ugu tagaysan leelo halka fadhida ugu tagaysan si wanaagsan waa mahadsantiin oo salaamu calaykum anigu intaas uma qaabisana aad baa mahadsantiin imika waxaan la yaabanahay kooxda ama madaxtooyada iyo inta ku xeeran ee sameynaya musuqmaasuqa ee sameynaya eexda ee sameynaya qaraabakiilka ee sameynaya isku dirka ee waxay doonaanba sameynaya ilaaha weyne xukunka u dhiibay ku eeganayaan dulqaadkiisa la yaabay waanad mahadsantiin waxaanu geli doonaa
بوسيرو 8 دقيقة إميكا لكن سهرت وحنو يريا عبد الرشيد حشرار أو حسب وطني كسو بيرايا أهلا وسهلا ده واحد مودع دمان وبشيء صومالي لاند إنه نقول ده دمان توت سياسيين أنت واحد مودع سياسة ده يتبع واحد كل شيء أفريقيا horta waa qurux badnaa waxaan muhiimadu waxa weeyaan horta inay naga dhaxayso wax la yiraahdo Soomaalilandnimo xisbiga walba wuxuu u doonay oo socda waxa weeyaan wadantii Soomaaliland mid baan rabaa inaan ka yiraahdo mid aad dadweynaha Brian dambe oo ay aad ugu mashquuleen oo tan doorashada oo muddadeedu ahayd 26 joog inay qabsoonto haddayna indhaa iska tireen 26 joog 3 bilood baa ka haray cid walba inuu soo taynaa doorasho lagu qaban karo waxaan ugu fikir ahaan ila muuqan lahayd mid un baa lagu qaban karaa doorasho waa haddii la joojiyo diiwaangelinta